boqol gabay hadii tirshan meesa badanooyin oohin ama loo buraanburo ciyaar beeray lagu caayo baroriyo adeer la isku daro muusa bixima waqtigaadii hargeysa maanta maxaa ka dhacay yah xalayto ilaa imikada aan muuqaalka duubayo magaalada hargeysa waxa sidaa ugu dadsan oo aad moodaa go'saa loogu daday calankii kulmiye hadda koodhan maayo hargeysa haafkeed koodhan maayo kala barhkeed koodhan maayo qayb ka mida koodhan maayo guud ahaan hargeysa oo dhan halkaa ilaag isha baxarka islaama maxay odhan jirin isha baxarka ilaah u sheegado waryaale walaalayaal kulmiye waa laga ducaysta walaalayaal yaa lama tartame waa laga dhunta wax kale muuqaalka ii leeg garee oo ii sheer garee oo meel fog ii gaarsiiye maanta muuqaaladii hore uu ka duwan yahay shakhsiga kulmiye taageersan iyo ka wadani taageersanba maanta waxaan doonaya inay wax faahsiiyaan doonaya waxaad moodaysaa tan inay doorasho kaliya tahay oo waraaqaha sanaaduuqda lagu gurayaad wallaahi moodaysaa laakiinse wallaahi maaha warqad kasta oo sanduuqa sidaa aad ugu ridday maaragta waxay la mid tahay xabad aad soomaaliya ku ridday sababtu maxay tahay caddayntiina waa kuu wadaa maaha waxaan afka kalaya maaha doorashadii siinaayo tii daahir riyaale tani way ka duwan tahay sababtuna waxay tahay aan kuu sheegaya muuqaalka inoo leegare inoo sheergareen horta magaaladii xalay ilaa xalayto taageerayaasha dee kulmiye waa mawjad iyo tog laysmala hortaagi karana may garata iyadoo komeshinku ay soo jeediyeen in habeenkii ololaha ay joojiyaan xisbiyadu haddana ma garanaysaa baaqa komeshika waxa ka dul tallaabsada oo jebiyey taageerayaasha kulmiye oo yidhi ganaax maad sheegaysaaye malaayiin doolar nagu xukum iyagoo calanka somalilan gacanna calanka ku jirta gacanna calanka kulmiye ku sitaa yah ayay hargeysa sidaa u qabsadeen kasta waxa ka babanaya calankeena cagta hoosteeda cadowgeena farta cidda ka xunfag faraxadeena sharafta ku dhiman maantana xisbiyada mucaaradka waxay ka daawanayeen sirraha hoostooda xisbiga kulmiye yah dee tan lama odhan karo taageeraa soo baxay waddani shalayto taageerayaashii hargeysa ku soo bandhigayey wuxuu ka soo guraya gobollada bari ayuu ka soo guraya dad isagoo lahaya camiray tollaaye laakiinse kulmiye isagoona tollaaye odhan aan cataabin waa markayga odhan haddii la daran waayo aan hanjabin ayaa saa loogu soo camira boqol gabay hadii tirshan meesa badanooyin oohin ama loo buraanburo ciyaar beeray waa qodob dadkaa soo baxay wax kale iska daayay hooyadii umushahay iyadoo ilmihii naasku jaqayo ayay meesha la timi waxaan leenahay guulayso aniga umula halkaa waxaanu imid maanta waxa weeye farxad igu dhiman ma jirto maanta yah sidoo kale carruurta magaalada hargeysa maanta waxay ku dhawaaqayeen kibirka iyo aftaaga muuse biixi cabdi ayaa ka keenay waxay kulmiye aftaagiyo kibirkiyo waxa ka badsay muuse biixi anoolaado wiilkaa yar waxaan u saxayaa hawran kibirkan waxa ka keenay muuse biixi laakiinse waxa tiraadayka iyo geesinimada muuse ayaa ka keenay waayo allaha ina abuurtay un baa kibri karaya inagu ma kibri karayno taasaan ka leeyahay hadda may fahantin horta magaaladii hargeysa marka koobaad somalilan waa bariya galbeed codka lagu kala badiyo majority galbeed ku yaalla cod la dhageysan kara maaha boqolkiiba 75 ama 80na waxa galbeedka ku xoog badan xisbiga kulmiye kuma odhanaya hargeysa kale qayb ka mid ah soo baxday ibraahim koodbuur gacan libaax yah iyo 26 juun axmed dhagax iyo waliba qaybo ka mid ah maxamuud haybe hargeysa waxay u soo baxeen xisbiga kulmiye maanta mid kalena aan kugu daro xisbiga kulmiye waa xisbiga kaliya
madaxda xisbigaasu ay fagaarayaasha ay ka yidhaahdaan ururka horseed iyo ururka hollaacban wax la doonaynaa maantana Soomaaliya ku dhawaaqay taas laakiin si gaara waxaynu leenahay oo aynu u jecelnahay horseed iyo hillaac Soomaaliya reer horseed waxaan leeyahay waa u jeedaan codkiina madaxweynenimo nimaha qayb kamid ah waxa ku hubsataan xisbiga kulmiye taasaan leeyahay ma baan doonayaa inaan muxaafid iyo mucaarid maanta u sheego war maanta ma codeynaysidee xabad ayaad ku ridaysaa dawladda Soomaaliya ya maanta muwaadinka codeynaya iyo askariga jiida hore jooga ee qoriga saddexbada ku ridayay cadawga wallahi maanta waa isku mid wallahi maanta dawladda Soomaaliya waa isugu mid ba may garat dhagahaaga ya mahay sababtu waxay timaan ku sheegaya ma ogtahay doorashada maanta ay ku lalamayaan Muuse Biixi Cabdi iyo Faysal iyo Ciro inay ka duwan tahay doorashooyinkii ay ku lalamayeen Daahir Yaala Kaahin iyo Siilaanyo ama ay ku soo baxeenba way ka duwan tahay maxay kaga duwan tahay waxay kaga duwan tahay laba xaalay kaga duwan tahay kow ma ogtahay dawladda Soomaaliya madaxdeeda uu Xasan Sheekh Maxamuud ugu sareeyo iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka iyo golihiisa wasiirada habeen iyo maalin TV-yada caalamiga ee Soomaalida kama hoos kacaan iyagoo indhahooda sida u eegayaan doorashada saa u eegayaan iyadoo ay leeyihiin wadani saameyn intee leeg buu leeyahay kulmiye ma laga guuleysanaya mise uu guuleysanaya habeen iyo maalin TV-yada ayay hoos fadhiyaan waa markii koobaad may garatay mar labaadka sababta waxaad isweydiinaysaa saa u sameynaya baad isweydiinaysaa laba doorasho ayay indhaha saa ugu hayeen dawladda Soomaaliya doorashada koobaad waxay ahayd doorashadii ka dhacday waddanka Mareykanka iminka tusaale ahaan ninka xana kaaga muuqanaya waa wasiirkii hore ee qorsheynta ee dawladda Soomaaliya iminkana wuxuu ka mid yahay guddiga la dagaalanka MMU-ga heshiiska Itoobiya iyo Somaliland ya wuxuu ka warramayaa doorasho sida ay habeen iyo maalin ma garanaysa uga warwarsan yihiin doorashada Mareykanka iyo doorashada Somaliland ilaa marka koobaad haddii wax isbedelaan oo xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne Trump uu dib u soo laabto saameyn way iman kartaa waxaa jira dad badan oo xisbigaas ka tirsan oo u ololeeya in Somaliland la aqoonsado in afgaradkan uu hirgalo Trump waxa lagu yaqaanaa inuu yahay qof ay wax walba ka suuroobaan doorashada koobaad ay warwarka ka qabeen waxa ay doorashadan uu ku soo baxay Donald Trump iyagoo ka ducaysanaya Donald Trump inaan soo bixin maadaama buugiisa oo lalaha ay ka mid tahay maalmaha ugu horeeyay inay Somaliland aqoonsanayaan taa wadnaha ay farta ku hayeen waa kow doorashada labaad ee habeen iyo maalin TV-yada hoos fadhiyaan waa doorashadeena afkiisu kaaga sheegayaa iyo sababta ugu warwarsan yihiin in kulmiye soo baxo si kale markaan u dhigno maamulka Muuse Biixi oo hadda Abiy u arkaa inay dantiisa ku jirto uusan isbedel dantiisa ku jirin waxa dhici karta markii inuu isku dayo inuu dhiirigeliyo wuxuu ku leeyahay waxay ku sheegayaan waxay dananayaan iyagu si kale hadaan u dhigno wuxuu ku leeyahay Abiy Ahmed waxay dantiisa ku jirtaa in Muuse Biixi markala soo noqdo dan kale ma ahade waa aqoonsiga Somaliland oo basaanu danaynayn isbedel buu ku leeyahay isbedelku in xisbiyada mucaaradka meesha yimaadaan wuxuu ku sheegayaa warwarka ay qabaan doorashadan way ka duwan tahay doorashooyinkii Siilaanyo iyo Daahir Yaale doorashadan waa doorasho ay danaynayaan dawladda Soomaaliya in Muuse Biixi iyo kulmiye meesha ka dhaqaaqaan si aan hankii iyo himiladii 30 sano aynu sugaynay ahaa in layna aqoonsado aan looga madhalin cod kasta oo sanduuqa aad ku rito waxay la mid tahay xabad aad u ritay dhanka Muqdisho u ritay sidoo kale cod kasta oo sanduuqa aad ku rito waxay la mid tahay xabad aad kula dagaalamayso dadka aqoonsigeena ka soo horjeeda taa way la fahanteen mid kale waa kugu daraya Muuse Biixi qabiilka uu yahay hayeegi waa habar awal waa sacad Muuse rasamtar taas adiga kuma khusayso kaliya waxa ku khusaysaa Muuse Biixi haddaad doorato cadawga Somaliland ma ka naxaya mise uu ka farxaya Muuse Biixi aqoonsi ma ku keenaya ya dalkeena dal ma u yahay cadawgu ma ka baqaya waxyaabahaas baa ku khusayay وأنا تتابع لفهمت أنا جاي موسى بيحي عبدي وحن قاعد سنة عدكاga inaad nasiiso codkaagu
inaad ku hubsato xisbiga kulmiye iyo murashaxiisa oo ah madaxweyne codkaan ku weydiisanayno aan musabixi isaguna uu ka doonaya naan kaaga doonaya isaga ma aha mid aan kugu soo shaqo tagnay ama aan dan gaara ka leenahay waa mid aan doonayno inaan cadowga Soomaaliland kaga nixino adigana kaaga farxino oo wixii aad sugaysa lagugu keeno midda labaad ee Muuse kugu daray waxay tahay saadaradeed muwaadin codkaaga maanta u coday nabadgelyada gudaha u coday iska celinta caabinta cadowga u coday ictiraafka u coday shaqo qaran iyo nabadda shaqo loo abuuro sida dhageysanada madaxweynaha Soomaaliland isagoo talada dalka haya kursiga ku fadhiya wuxuu isagoo musharaxa ka codsaday inaad codkiisa siiso xoogaaga kagama doonayo codka inuu ciidanka qaranka Soomaaliland meel tuu fuulo laayo kuma laha waa markaygii kuma laha haddaad doolan weydo dalka ragmanaya kuma laha haddaad doolan weydo dalku igama dambaynayo laakiin isagoo muwaadin reer Soomaaliland ah oo waliba mujaahid dalkan wax ka shaday ah oo waliba doonaya inuu wax kale ku qabto ayuu ka codsanayaa oo ku leeyahay ii code may garat